waxaan nagu maqaalaa inaad mararka qaar tiraahdo kalfadhiga waxaanu qabanayay nimankaa waynu isdilaynaa ama xilkayga qaadayaan mana aha sabab aad kalfadhiga uga baaqsan karto xilka qaadistana dee sharci baa sheegayo xaq baan u leenahay inaan xilka ka qaadno kadib markii ay golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland soo celiyeen miisaaniyaddii golaha deegaanka magaalada Gabiley aanay ansixin isla markaasina iyagoo golaha baarlamaanku ay sheegeen in lagu shaqeeyo miisaaniyaddii 2020 haddaba afhayeenka aqlabiyadda golaha deegaanka magaalada Gabiley oo la hadlay warbaahinta gobolka Gabiley ayaa falanqeeyay miisaaniyaddaasi isla markaasina u mahad celiyay golaha baarlamaanka shirkiga jaraa'id wuxuu daaran yahay inaanu mahad celino golaha wakiilada hore waxaanu halkan baaq uga jeedinay golaha wakiiladu in miisaaniyadda golaha deegaanka 2022 aanay golaha soo marin saadaradeed golahu aanu ansixin golaha wakiilada gaar ahaan guddida dhaqaalaha waanu mahad celinaynaa waajibaadkiinii shaqo ee qaranna waa gudateen guddida dhaqaalaha iyo guddida dabagalka hantida qarankuwa labada guddiba aad baan ugu mahad celinaynaa iyo guddoomiyeyaashooda runtii waxay tilmaamaysaa in doorashadii dalka ka dhacday ee uu qabtay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inay isbeddel keentay waxaanad ka garan kartaa golihii wakiilada horadee kamaynaan maqli jirin guddi dabagal baa shaqo qabatay iyo guddi dhaqaalaha miisaaniyad dib u eegis ku samaysay labadaaba maynaan maqli jirin labadaasiba waxa keenay isbeddelkii ay doorashadu keentay marka doorasho kastoo la qabtaa mar walba isbeddel negative iyo ku positive labadaba way leedahay marka horta dee farxad bay noo tahay waanu mahad celinaynaa golaha wakiiladu waxay sheegeen in miisaaniyadda 2021 ay dib u isticmaalaan inta galuhu soo ansixinayo miisaaniyadda 2022 miisaaniyaddii 2021 miisaaniyaddu sideedaba 3 qaybood bay u qaybsantaa waxa weeyaan kharashka shaqaalaha iyo kharashka hawl socodsiinta iyo mashaariicda horumarka waxay noqonaysaa in qaybta kharashaadka oo imika laga sii isticmaalo inta galuhu u fadhiisanayo inuu miisaaniyadda ansixiyo mashaariicdana dee way qabsoomeen wixii 2022 ay ka qabanayeen inta mashaariicda aanay qaban 2021 golaha deegaanka ama dawladda hoose Gabiley waxay ku maqan tahay waxa weeyaan fulinta laga doonayaa mashaariicda aan qabsoomin 2020 halkii iyagu mariyeen miisaaniyadana kama qaban karaan mashaariicda oo December bay ay miisaaniyadaasi xidhantay isagoo baaq u diray maayirka magaalada Gabiley oo ugu baaqay in ay shaqadoodii gutaan waxa doonayay inaan halkan uga soo jeediyo maayirka Maxamed Amiin Cumar Cabdi maarka degmada baaq gudoomiye waxaan ku leeyahay horta ka warwareegin shaqadii golaha ee laynoo doortay kalfadhigii wuxuu ahaa inuu qabsoomo 4 December kalfadhigii wuxuu ahaayay golaha deegaanku kalfadhigii Octoberna waad xidhay kii Decemberna ilaa imika maad qabano waad ka warwareegaysaa taasina waa ta keentay dhibaatada in ilaa iyo imika miisaaniyadda golaha aan loo fadhiisan marka gudoomiye waxa ku leeyahay shaqada ku soo noqo kalfadhigii inaynu qabsano dadku horumar bay naga sugayaan mashaariic horumarineed bay naga sugayaan 2022 si aynu u qabanno mashaariicdii bulshadii ina soo dooratay aynu ugu qabanno oo aynu ugu celino waxaynu u baahanahay inaad kalfadhigii qabato waxaan nagu maqaalaa inaad mararka qaar tiraahdo kalfadhiga waxaanu qabanayay nimankaa waynu isdilaynaa ama xilkayga qaadayaan mana aha sabab aad kalfadhiga uga baaqsan karto xilka qaadistana dee sharci baa sheegayo xaq baan u leenahay inaan xilka ka qaadno sharciguna dee qodobo sheegaya sababa xilka laga qaadayo iyo jidka loo marayo laakiin kalfadhiga caadiga shaqadii golaha weeyaan waxaanu ku leenahay kalfadhiga ku soo noqo shaqadii caadiga aynu qabanno mashaariic horumarka ay naga sugayana bulshada aynu ku celino السلام عليكم ورحمة الله isagoo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa waa Cabdisalaan Maxamed Bade Bulsha TV Gabiley abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus hadal
oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland